السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikachi. maanta waxaan qaadananaa 10 English. 10kan waxaa la yiraahdaa daily routines. Routine waxaa laga wadaa wax si maalinle ah u samaysid, sida inaad toostid oo kale, inaad cadayatid oo kale, waxyaabo aad si maalinle ah u samaysid ayaan waxaan rabnaa inaan 10kan ku qaadano hadii Ilaahay idmo. 10kan wuxuu ku saabsanaan doonaa gaar ahaan morning routine ama waxyaabaha sida joogtada aan u sameeyno subaxii kaliya. wuxuu leeyahay in the morning subaxii ama subaxdii I wake up one tosa. Wake up waxa la yiraahdaa qofku markuu seexdo miirkiisu waa tagaa. marka miirku soo laabashada qofku inuu soo jeedo inuu ogaado baa waxa la yiraahdaa wake up. qofku wuu toosay, miir ahaan buu toosay, laakiin weli kama kicin sariirtii. I get up from my bed. waxaan ka toosaa oo ka kacaa, waa ka kicidda. toosidan I get up at waxa weeye markaa sariirtaada ka dulkacdi. I get up from my bed. sariirtayda ayaan ka kacaa. I make up my bed. sariirtayda ayaan hagaajiyaa. dharkii aan ku seexday, go'ii aan waday, barkintii, waxaasaan mid walba waxaan dhigaa si habaysan baan u dhigaa. Make up my bed waana arrin aad iyo aad u wanaagsan waxa weeye qofku inuu sariirtiisa hagaajiyo. Okay. And I go to the toilet. markaan sariirtayda sameeyo kadib I go to the toilet. waxaan aadaa suuliga. Toilet waa suuliga, waa halka lagu xaajo guto. meesha waxa weeye dunida kale waxa laga isticmaalaa mid la yiraahdo bath ama meesha lagu qubaysto, iyo meel la yiraahdo toilet oo xaajooyin kale lagu guto. marka I go to the toilet waxaan aadaa suuliga. marka sidoo kale wuxuu noqon karaa mid labadaba isugu jira. adiga waxaad tiraahdaa suuliga. I go to the toilet, suuliga ayaan aadaa. I brush my teeth. waxaan cadayaa. brush waa cadayid. my teeth waa ilkahayga ayaan cadayaa. I take ablution. waan weyse qaataa. and pray the morning prayer. salaad subaxna waan tukadaa. morning prayer waa subaxii, waa salaada subaxa. prayer waa salaad, morningna waa subaxii. ablution waa weyse, waa inaa I take waxa weeye waa qaadasho. I take ablution, waan weyse qaataa. and pray the morning prayer. salaad subaxna waan tukadaa. I comb my hair. waxa aan shanleeyaa. comb waa shanlayn ama feerid waxa u taqaanid. and sometimes I cut my nails. marmarka qaarkoodna I cut my nails. waxaan jaraa cidiyahayga, ama cidiyihii faraha noqdeen oo gacmaha, ama kuwii lugaha noqdeen. adiga cidiyo oo dhan iska nails. I make breakfast for myself. naftayda ayaan quraac u sameeyaa. breakfast waa quraac, make-na waa sameyn. I make waxaan sameeyaa breakfast, quraac, for myself, naftayda. I have or I eat breakfast. I have breakfast haddaad tiraahdo waxa weeye waxaan cunayaa ama waxaan cunaa quraac. I eat breakfast haddaad tirahdina waxa weeye quraac baan cunaa. waa isku mid. I have breakfast, I eat breakfast waa isku mid. labadaba slash baan u dhaxaysiyay, waa isku macno. I wash the dishes. weelashii aan cuntada ku cunay iyo kuwii aan ku karsaday ayaan dhaqaa. dishes waxa weeye waa weelashii. I wash the dishes. wash waxa weeye waa dhaqid. I wash the dishes waxaan dhaqaa weelashii aan wax ku cunay iyo kuwaan wax ku karsadayba. I drink a cup of tea. waxaan cabaa koob shaaha. cup of tea waa koob shaaha. or waxa dhihi kadhaa I drink a cup of coffee. dadka qaarkood coffee bay taageeraan, qaarka bun bay taageeraan, laakiin meeshan waxaan uga hadlay coffee iyo shaah. marka I drink a cup of tea haddaad tiraahdo waxaan cabaa koob shaah weeye. haddaad tiraahdo I drink a cup of coffee-na waxa weeye hal koob oo coffee ah baan cabaa. sometimes marmarka qaarkood I take a shower or bath. marmarka qaarkood waan qubaystaa. bath waxa weeye waa qubaysasho. take a shower waa qubaysasho. take a bath-na waa la mid sidoo kale, iyaduna waa qubaysasho. marka sometimes marmarka qaarkood I take a shower or I take a bath, waan qubaystaa. I check my phone. waxaan check-gareeyaa oo mataqaanaa waxaan fiiriyaa eegaa. check waxa weeye qofku inuu wax check-gareeyo waa wax inuu eego oo fiiriyo inay waxa ku soo kordhay iyo waxa ka nusqaamay. I check my phone. telefoonkayga ayaan check-gareeyaa. and reply waxaana ka warceliyaa ama ka jawaabaa to urgent messages.
masaajyada degdega ah masaajyada si degdeg ah looga baahan yahay in fariin looga soo gudbiyo ayaan ka jawaabaa sababta fariin walba inaan ka jawaabto muhiim ah I reply I check my phone taleefankayga ayaan check gareeyaa dabadeedna and reply waxaan ka jawaab celiyaa oo ka war celiyaa to urgent messages masaajyada degdega oo hadda loo baahan yahay I read quraanka ayaan akhriyaa waa routine aad iyo aad wanaagsan ama waxa weeye fal in subax walba la sameeyo ay aad iyo aad wanaagsan tahay oo aan kugu dhiirinayo haddaad samaysidna aan kugu sii dhiirigelinayo haddaad samayna aan mataqaana hadda waxa weeye soo bandhigaya muhiimadda ay leedahay okay 15 I do some warm up exercise waxaan sameeyaa some warm up xoogaa warm up exercise waa mataqaana waa jimicsi warm upna waxa weeye waa mid kale isku kululeeya warm up waa kululayn weeye inaan wax diirisid marka xoogaa exercise oo aan isku diiriyo ayaan sameeyaa I do some warm up exercise ama waxa weeye jimicsi aan isku waxa weeye jirkayga ku firfircooni ku geliyo ayaan waxa weeye sameeyaa I get dressed kadib dharkayga ayaan xirtaa I get dressed dharkayga ayaan xirtaa I go to work shaqada ayaan aadaa haddaa shaqaysid I go to university haddaa arday tahay oo jaamacad dhigatid waxaa leedahay I go to university jaamacad ayaan aadaa haddii arday aad tahay iskuul dhigatidna waxaa leedahay I go to school ayaan aadaa haddii aad private dhigatid oo kale waxyaalahaas kale mataqaana kuma soo dirin laakiinse in case aad private dhigatid waxaa dhihi kadhaa I go to private school or private whatever intaas ayaa cashir kusoo gabagabaynayaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen haddaan ugu cusub tahay fadlan nagu soo biir haddaa horey noola joogtayna like-ta iyo share-ta iyo commentiga hoos kusoo qora wax walba u baahantihiin inaan mataqaana kanalka kusoo siyaadino oo waxa weeye aqoontiina wax ka taraya faa'iidana insha Allah qaybta commentiga lagu wadaaga aad iyo aad baan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh